يا ساكن الدنيا أمنت زوالها ولقد ترى الأيام دائرة. سياسة إسلامية محل الراعية السياسة الشرعية مركز كلمة الشرعي أيها وحي كسو عيسى انتي كله تا معنى دو وحوية وحاجة بشرية سياسته قال إيا مسلم با إنه معموله اسمعموله وحوية وحاجة بشرية وأن لبس ويديني تاين هذا الكلام مركز وحوية سياسة غير شرعية كقيب قادة شديدة يحكم كيدو وحنا قريب. قيبته قامنتا يفنق السياسة الإسلام كمركي و خلاف الراشدة صدن سنة شرتي النبي كدم بيس عليه الصلاة والسلام مركي بوحد عي والله انقلابي قابكي شوردها إسلام كوسو سعودي انتي أفرت خلافة شوقين وحب لما بقرتويين مقرنسا كردستان دحل كردستان خير كردستان قويس عرقي كردستان كوا انتي اي سو جيرين او كن iyo saa'id sana ah waxa daciifay sida uu u bulaabulay ama si ay u fiday ama ay u ballaaratay qaybta kale ee islaamka fiqiga oo kale ah qaybtiisa aad bay u daciiftay oo wax nin ka talinayo ama reer ka talinayo ay noqotay laakiin labadan namadaynu tilmaanay ayaa waxa aynu oran karaa waa namadada tajaaribta sameeyay ay ku raadinayaan inay xugun ku gaadhaan ujeedkooduna uu yahay inuu yahay wasiilo ummadda lagu islaaxiyo maadaama xarakaadkan islaamiga ah hadafkooda iyo ujeedkooda iyo jiritaankoodaba uu yahay in dadkan muslimiinta diinta loo celiyo la islaaxiyo ayaa waxay u arkeen inay siyaasaddu tahay dariiq kamid ah duruqa islaax wax lagu islaaxinayo dooda koobaad wadaad baan la doodayaa qodobka koobaad waxaan la doodayaa Sheekh Cabdiqani baan ka bilaabayaa fashilka siyaasadda ee islaamiyiinta guud ahaan iyo gaar ahaan iyo ka Soomaaliyeed gaar u tilmaantay baan dood ka qabaa wax ku dhow 1000 sanadood ayaa dawladda islaamka ka soo wareegtay waqtigii la burburiyay dawladda islaamka ah caalamka laga tirtiray muddada 1000 sanadood ahayd waxa dhismaayay ama boqortooyo ha noqoto ama tii dawladihii wanaagsanaa islaamiyiintabe intiiba waxa dhismaayay dawlado iyo nidaam dad qarbiyin jaangooyeen dabadeedna caalamkiina waa la isay dareeyay waxay la gaaray waqti aan dad islaamiba aanay dawladnimada sheegan waxa la gaaray in diinta iyo dawladnimada la kala fogeeyo qoliyaha siyaasiyiinta waxaan weydiinayaa marka halkee gaadhaan ayaa ujeedadii gaadhisaan barsheega marka wasiir noqotaan marka baarlamaanka qabsataan marka madaxweyne noqotaan intiiba waa qabsateen aaway waxa doonayseen qadiyada xuquuqul insaanka inagu waxbaynu ka qabnaa iyaguna waxbay ka qabaan maxay idinka aragtiya marka meesha joogteen maxaa ka aaminsaneedeen qadiyada xuquuqul insaanka marka gudaha loo soo dhaadhacay arrimaha maaragtay gudaheena mas'alatul muwaadana qofka muxuu xaq ma wuxuu ku helaa muwaadinimada mise islaamnimada waa mas'ale maanta loo baxsay oo la wada yaqaanaa maxaynu xal u haynaa aragtidanu ka qabnaa maxay faqriga waxbarashada ammaanka maxaynu xal u haynaa maxaynu ka aaminsanahay الطاعة والمعارضة إن نظامك الإسلامي جاهي موجود هي إن حزب معارض يسمى أقرأ محنو كلام سني هدي اللي دويدي إن كل سياسيين تي مسلمي ودادة مثلي هدا هدي اللي دويدي محاكو جواب سن waxaan ku faraxsanahay in laba professorka iyo aqoonyahan Saalaw isku raaceen waxa jeer Faysal iyo Saalaw isku raaceen in siyaasaddu ay tahay maareynta nolosha oo maanta qof kasta la weydiiyo oo la yiraahdo waad ku qasbantay in aad wax xukunto iyo lagu xukumo wax ka dhaxeeya ma jireen Soomaaliland markaynu nimaadno miyaan lagu tilmaami karin injaas islaamiya in dastuurka Soomaaliland ay ku qoran tahay wax kasto shariicada islaamka ka soo horjeeda waa waxba kama jiraan inay ku qoran tahay ribadu waa xaraan inay ku qoran tahay xeer lama sameyn karo xeer تطبيق واقار إسلاميين تو مركي حكومة ذا قبصدين وحكي مع علامين عن في عينين هو أيوة بلادني خيامه إني وحاسول الكي مادي مركا تاسي عبد الغني وحليها ما تربية دي ني هراء aynu ku dhaqmaynaan oo ayaynaan uba diyaar garoobin xukunka inaynu qabanno xukun islaamiga inaynu qabanno oo gallo marka
haddii fashilka noocan yimi ma isku dayi karnaa sheekh cabdiqani inaynu diyaarino kawaadir fara badan oo haddii ay dhacdo dawlad inaynu helno taa maanta taagan ha noqoto tii silaahiya ha noqoto aynu ka nimi ama tu soo socotoba ha noqotee inaynu helno kawaadir isku xidhan dad isku xidhan wadaadada maxaa u hadafa horta ma inay ayagu kursiga tagaan oo ay kitaabka ilaahay ku maamulaanba mise kitaabka ilaahay horta inuu kursiga tagaa muhiima taa lafteedu waa su-aal meesha taalla waxaynu ogsoonahay haddaynu soo daadegno soomaalida dhexdeeda culummadu ama ducaaddu waxay abuureen saxwo dacawiya waxaanan aaminsanay guul badan bay ka gaadheen oo isbeddel bay keeneen maxaa loo waayey in la abuuro saxwo siyaasiya oo wadaadadu wadaan laftooda iyo fikradoodiiyo socota ah maaha keligoodu inay ayagu hogaamiyaan fikradoodoo saxwo siyaasiya ah oo saamaynteeda leh maxaa loo waayey وذو المواكب والكتائب والنجائب والمراتب والمناصب في العلا